Soo noqod wanaagsan saaxiibayaal. Maanta waxaan soo koobi doonaa filim aad u xiiso badan. Intaan u gudagelin muuqaalkeena, fadlan like saar muuqaalka. Haddaan channelka ku cusubtayna, nagu soo biiri. Filimkan wuxuu ku bilaabmayaa wiilka yar oo la dhaho Lucas. Waxaana maalintii iskuulka ka foodeeya koox arday ah. Waxaana laakiin garanayn walaalka Lucas, kaasoo lagu magacaabo David. Waana askari dhawaan howlgab ka noqday ciidamada gaarka ah. Waxaanu ilaalinayaa walaalkii. Waxaanu ku yidhaahdaa, waxaan rabaa inaad tusto kuwii shalay ku foodeeyay. Maalintuusaa kadib David wuxuu go'aansadaa inuu cashar u dhigo kuwa walaalka dhibay. Kadib wuu dabagalaa waxaanay tagaan baadh. Kadib David ayaa u yeedhay ninka baadhka. Waxaanu sheegaa inuu keeno cabitaan kulul. Waxaanu ku dhahaa asxaabta kalena inuu geeyo cabitaan. Kadib wuu geenayaa cabitaankii ninkii baadhku. Kadib David waxa uu yimaadaa mid ka mid ah asxaabtii foodada waday. Kadib wuxuu ku shubaa cabitaanka. Kadib David ayaa iska dhawla cadeeya. Waxaanu ku shubaa cabitaankii kululaa loo keenay. Waanu garaacayaa. Mid kastana waxa ku dhaca dharbaaxa kulul. Kadib wuxuu miiska saarayaa lacag, taasoo ah khasaaradii ka dhacday maqaayadda. Wayna soo baxaan isagii Lucas. Kadib waxaynu ogaanaa inuu David uusan u ahayn walaalkiisa runta, balse uu yahay saaxiibka walaalkii Lucas, kaasoo ku dhintay 2 toddobaad ka hor dagaal. Kadib markii ay waayeen wiilkoodii ugu weynaa ee Clive, Spencer iyo xaaskiisa Laura iyo labadooda carruur ah ee Luca iyo Anna ayaa la halgamayay si ula qabsan lahaayeen geerida walaalkood. Subax ka mid ah Laura ayaan arkaynaa oo murugaysan. Kadib Spencer iyo Luca ayaa ka soo baxaya guriga, isla markii waxay ridda ka soo hor muuqdaan David. Laura ayaa la yaabtaa markuu magaceeda sheego, iyadoo ay u muuqato inuu og yahay cidda ay tahay. Waxaanu ku dhahaa, waan aqaanay wiilkaaga Clive, waana isla tababaran jirnay, waan wada shaqayn jirnay, waxaana ahayn saaxiibo isku wanaagsan. Waxaanu u sheegayaa in la dhaho David, kaasoo ka mid ahaan jiray ciidamada Maraykanka. Waxaanu u sheegayaa inuu ahaa saaxiibkiisa ugu dhow Clive. Kadib Laura ayaa hore u soo soco ku tiraahdaa, waxayna siisaa cabitaan inkastoo weli ay ka shakisan tahay isaga. Waxaanu sii wadayaa sharaxaadii. Waxaanu u sheegay in dhowr bilood uu yaalay isbitaal military, kaasoo in badan ay ku qaadatay inuu soo kaabto. Markii uu soo kaabtayna waa laga soo saaray ciidanka. Waxaanu u sheegay inuu arkayay markuu dhimanayay wiilkeeda. Waxaanu weydiistay inaan ka war hayo qoyskiisa. Waxaanu kaloo ii sheegay inuu hooyadii aad u jeclaa. Kadib Laura ayaa aad u murugoonaysa, waxayna aadaysaa musqusha iyadoo aad u ooyeysa. Waxayna u soo laabanaysaa David isagoo tusaya sawirkii markii la diray laga qaaday. Laura shakigii markii hore ay ka qabtay waa ka baaba'ay. David waa ka raaligelinaya arrinka. Waxaanu Laura u sheegayaa inuu baxo, laakiin Laura way ka diidaysaa taas, iyadoona ku sii qancinaysaa inuu joogo, iyadoona rabtaa in ay la kulanto ninteeda Anna. Intaas kadib wuu joogayaa, waxaana isbaranaya Anna. Kadib David ayaa u sheegay inuu rabo inuu kiraysto hodheel, laakiin Laura waxay David siisaa qol gurigooda ka mid ah. Waxaanay ku tiraahdaa waxaad degaysaa qolkii hore ee Clive. Waxayna ku adkaysaa arrinka. Waxayna u caddaysaa inaanay dhib ku qabin isticmaalka qolka Clive. wayna ka tegaysaa David si uu isaga nafiso. Filimkan wuxuu isku rogayaa xaw ka soo biloomay, kaasoo inuu fahmi doono si fiican. Lucas ma laha kartuu isaga celiyo ardayda, waana sababta uu markasta naftiisa uga soo qaado si iyadoo aan waxba dhicin. Waxayna arkaynaa inay soo muuqato Laura, hooyada Lucas, taasoo maalin kasta ka qaaday iskuulka. Waxaana ku tiraahdaa ka waran maalintaada. Waxaanu muujiyaa weji furnaan, isagoo sheegaya inay fiicneyd maalintiisu. Markii guriga lagu soo noqday, Lucas wuxuu bartay David, halka dhanka kale uu maqlayo Spencer oo la murmaya Laura, kaasoo uu sheegayo inay qalad tahay in qof shisheeyaha guriga yimaado. Waxaanu ku yidhaahdaa ma fiicna taasi. Dhanka kale David wuxuu arkaa dhaawac ku yaala wejiga Lucas, kaasoo u geysteen ardaydii foodeynaysay. Kadib David ayaa weydiiya nuuradan see ku soo gaadhay, laakiin arrinkaa ka marmeera Lucas. Waxaanu u sheegayaa inay ku dhacday kubadda fasalka jimicsiga. Kadib waxaan aragnaa inay isfahmi waayeen Spencer iyo Laura, wayna kala dhaqaaqeen. Laura David waxay u sheegtaa inuu ka caawiyo Lucas homework loo soo diray. David wuxuu si aad u ammaanaya Lucas, kaasoo si fiican u wata homeworkiisii. Waxaanu ku dhahaa waxaad tahay qof caqli badan. Lucasna wuxuu ku dhahaa waxaan filayaa inaan saas tahay. Wax yar kadib Anna ayaa guriga ku soo laabataa, laakiin Anna iyadoo hadda uu qof kaliya ka shakisan David, welina umay bogin dabeecadiisa. Kadib Spencer ayaa cabitaan u keenaa David. Kadib way wada fadhiistaan iyagoo sheekaysanaya. David ayaa Spencer ku dhahaa wiilkaagii Clive wuxuu ahaa nin geesi ah, aad buu jeclaa qoyskiisa, mar walba wuu idin xusi jiray. Hadalkaas wuxuu si toos ah u taabanaya qalbiga Spencer oo weli ka murugoonaya dhimashada wiilkiisa. Spencer ayaa ku dhahday David, waqtiyadii hore waxaan ka fikirayay inaan ciidanka ku biiro, laakiin nolosha ayaa si kale igu dhacday. Davidna wuxuu ku dhahaa nolosha mar walba qorshaheedu wuu isbedelaa, laakiin qof walbaba waa inuu bixiyo intikiraankiisa. Spencer wuxuu sheegaa inuu galay shaqo yar si uu qoyskiisa ugu kafeeyo. Waxaanu ku dhahaa 4 sano waxaana soo food saartay dhaqaale la'aan. Qoyska waxaa kaliya isku haya inuu yahay xasuusta wiilkayga Clive iyo mushaharka wiilkayga. Kadib David ayaa ku dhahaa Spencer Clive wuxuu ii sheegay inaad tahay nin adag oo daacad ah, sidoo kalena uu istaago qoyskiisa. Intaas kadib David ayaa u sheegaa inuu rabo inuu aado Florida, xaggaas uu shaqo ka helay. Laakiin Spencer iminka wuu aaminay David. Waxaanu arkaa wiilkiisa oo kale isagoona ku adkaynaya inuu joogo xagga maalmo kale sii joogo. Taasina waa waali, mana garanaysid xagga u socoto. Kadib waxaanu arkaynaa qaybta xagga hore filimkan ku soo aragnay, taasoo ah inuu David soo galo booska hooyadii, kaasoo uu soo qaadayo iskuulka. Kadib wuxuu weydiinaya ardaydii foodeysay ilaa uu ka qaraaco marka dambe.
kadib wuxuu kusoo laabtaa guriga Anna weli waxay ku taagan tahay go'aankeedii hore hooyadii Laura ayaa ku khasabtaa Anna inay David u kaxayso xaflad dhacaysa caawa kadib markay ay bixi rabeen ayay Anna soo eegaysaa inuu isdiyaariyey laakiin wuxuu musqusha kaga soo baxaa isagoo feedha qaawan Anna way yar xishootaa waxaana la yaaban tahay jirkiisu siduu u dhisan yahay kadib way soo baxdaa waxayna keenaysaa xafladda ay martigelisay saaxiibteeda Kristen Anna ay David u sheegaysaa inay leedahay boyfriend waxaana lagu magacaabaa si kadib David si saayid ayuu u soo jiitaa saaxiibta Anna ee Kristen kadib Anna waxay si hoose u isku raacaan saaxiibkeeda si kadibna waxaanu aragnaa saaxiibka hore Kristen kaasoo lagu magacaabo Drew inuu rabo inuu foodeeyo Kristen laakiin marnaba taas waxa ogolaan waayay David isagoo garaacaya Drew Kristen waa la yaabaysa David markuu garaaco Drew Kristenna David crash ay ku sii noqonaysaa kadib ninkan lagu magacaabo Courage ayaa David ku yiraahdaa waxaan u baahanay hub isagoo Courage weydiinaya sababtuu ugu baahan yahay hubka David waxaanu ku dhahaa waxaan ahay nin askari ah waana jeclay hubka intaas kadib waxaanu aragnaa Anna iyo Sig oo isku dhacsan kadib David ayaa u sheegtaa inay rabto inay baxdo waana soo baxayaan intii baabuurka saarnaayeen Anna waxay uga sheekeynaysaa Sig iyadoo dhahaysa waa bilaa mustaqbal wax uu ka fikirayaana ma jirto waxayna tiraahdaa kale isagu wax shaqo ah ma haysto kadib waxay tiraahdaa si xum ayaad u qaracday ninka ugu qaraacay xafladda ee lagu magacaabay Drew kadib David ayaa dhahaa marnaba ma jecli dadka dulmiga wada Anna waxay ku odhanaysaa laakiin si naxariis daraa ayaad u qaraacday isagoo ku dhahaa waxa ma yeelin kaliya 10 ayana siiyey Anna waxay ku tiraahdaa wad waalantii gebi ahaantaadaba Anna weli ma joojin ka qabtay kadib wuxuu ku dhahaa si maskaxda kugu degto dhageysan muusig kadib waxay imaanaysaa guriga idan waxay dhageysanaysaa muusiga waxaanu aragnaa kale David oo fadhiya qolkiisa soo wajigiisu ka muuqda xanaaq badan subaxdii xigtay Anna waxay maqashay si lama filaan ah David oo telefoonka ku hadlaya kaasoo aan garanayn qofka uu la hadlayay moolku ku hadlayna wakiil Lucas wuxuuna u muuqdaa mid dalbanaya waji cusub kaasoo doonaya inuu iska bedelo wajigiisa waxaanu rabaa inuu bedelo aqoonsigiisa iyo face-kiisaba waxaanu yiraahdaa si dhaqso badan ayaan rabaa sidoo sii raacanaya hadda waan ka baxay shabakadii laakiin waxa jira dad isku dayaya inay helaan inaguna xagga waxaanu ka dareennaa in David la raadsanayo uuna yahay qof sir ah Anna oo shakiga sii siyaaday waxay la xiriirtaa saldhigga military si macluumaad dheeraad ah u hesho si ay u xaqiijiso David aqoonsigiisa waxaana loo sheegaya inuu jiro magaca David la dhaho kaasoo magaciisa la dhaho David Andres Collins kadib waxaanu aragnaa in la diray digniin kaasoo loo diray hay'ad ciidan oo gaar loo leeyahay kaasoo lagu magacaabo KPG waxaana ka mid ah David kooxdan gaarka waxa uu malinayay inuu David dhintay ninkan oo lagu magacaabo Major Carver oo madaxa hay'adana wuxuu ururinaya koox ciidan ah oo gaar ah markuu ogaaday inuu nool yahay David waxa yar kadib David waxa uu la kulmay Courage saaxiibkii si uu u iibsado qoryaha kadib markii arkay inuu David sita lacag cadaan ah waxay tusan hubka uu ka gadanayo waxayna ku yiraahdaan haddii hubka mid ka mid ah aragtay kuwa kaana wada aragtay David ayaa u sheega inuu dhammaan qaadan doono alaabtan kadib way ku farxaan laakiin marka dambe heshiiska uga baxayaan David isaguna wuxuu sheegaa inuu dili doono kadib David labada nin buu dilaya waxaanu ku dilaya baasaboordu tijaabinayay kadib wuxuu qaadanaya hubkii kale oo dhan iyo bambooyin dhan kale Anna waxa saldhigga military ka heshay war cusub waxay rabtaa inuu sheegto hooyada Laura laakiin waxa guriga imaanaya aabaha Spencer kadib waxa uu sheegayso Spencer ayaa Laura u sheegay in maamulihiisii iyo saaxiibtii ay dhinteen kuwaasoo qaatay kiini aad u badan oo uu dhakhtar u qoray taasoo aanu arkayno inay si wada jira isku dileen wax yar kadib waxaan aragnaa Anna waxaana heshaa war xun kaasoo sii ku sheegayo inuu Courage dhintay Anna aad bay uga naxdaa arrinka waxaana aysan maqaayadda Kristen ka shaqeyso si ay saaxiibteed uga nasiso kadib waxaan aragnaa David iyo Lucas oo fadhiya dibadda si bocorka ugu sawiraan Halloween David wuxuu la soo baxaa midii uu siin jiray markuu ciidanka ahaa isagoo Lucasna ku dhahda taas ma sita mar walba kadib waxaan aragnaa Anna oo la wadaagaysa arrinka naxdinta leh Kristen kaasoo ah arrinka sirta ay ka heshay militariga waxaana uu sheegaysaa in David toddobaad ka hor loo malaynayay inuu dhintay kaasoo loo malaynayay inuu ku dhintay dab ka kacay isbitaalka militariga kaasoo ku yaala Arizona taasoo sii kordhisay shakiga Anna arrimaha naxdinta leh ee laga sheegay David Kristen ayaa u soo bandhigaysa in Lucas eego nambarada uu David ka wacay moolkiisa David iyo Lucasna waxay soo galaan guriga iyagoo ku sawiray bocorka Halloweenka kadib David wuxuu dhiirigeliyay Lucas isagoo uu sheegaya inuu iska difaaco cagjuqleynta lagu hayo isaga waxaanu ku yiraahdaa habeenkii waxaad tagtaa guryahooda oo waxaad ku gubtaa iyagoo qoyskooda oo jooga waxaanu ku dhahaa waxay waxa ugu xun ee aad samayn karto kadib wuxuu u dhiibayaa mindidiisii isagoo uu sheegaya inuu isku difaaco intaas kadib waxaanu aragnaa Anna ayaa guriga ku soo laabataa waxaana iska dhigaysaa sida qof aan waxba ogeyn si caadi ah ay ula hadashaa aabaheed waxaana qaadataa telefoonka David si dhuumashaa kadib waxay qolkeeda u soo gashaa si degdeg ah waxaana shidaysaa muusig iyadoo xoog u dalacaysa intaas kadib waxay sawranaysaa telefoonka David nambarada soo wacay isla markaasna telefoonka David si lama filaan ah u soo dhacaya kadib Anna way kacdaa iyadoo telefoonka geynaysa qolka David sidoo kalena waxaa aragnaa inuu David raadinayo telefoonkiisa waxaanu soo gelaya qolka isagoo ku arka telefoonka sariirta dusheeda kadib shaki weyn ayaa gelaya waxaanu hor istaagaya qolka Anna balse si uu wax uga maqlo laakiin muusika ayaa ka daaran waxna ma maqli karo Anna way dareensantay in David dhegdhegayn rabo laakiin wax juuq ah ma odhanayso intaas kadib waxaa soo wacay isagoo uu sheegaya inuu xidhan yahay waxaana lagu soo eedeeyay inuu dilay Courage iyo saaxiibkii
iyadoo qoriga dilka lagu geystay laga helay gaadhigiisa waxaanu raacinaya aanu ma lahayn hubkaas kadib aana saayid ayuu murugootaa waxaanu ku yidhaahdaa waxay baadheen qolkayga waxaana ka helay waxyaabo kale faamilkooga ayay la wadaagtaa arrinta siig spencer ayaa ku dhahaa doonaysa inaad ogaato sababta loo xidhay siig sababtoo ah wuxuu geystay dil kadib aanaya aabbaheed spencer ayaa dagaalkoodu sii xoogaystaa kadib aana waxay daa ka qaadaa arrinta David kaasoo ka ogaatay ciidamada militariga waliba saldhigga ciidan oo ka soo jeedo waxaana loo sheegay inuu dhintay David isagoona iska waalin David si degan ayuu ugu sheegay xaafadda inuu ka tirsan yahay ciidamo gaar ah waxaanu tusaa aqoonsigiisa ciidan kadib Spencer wuxuu ku qanacayaa ereyada David Spencer ayaa aad uga carooda eedeymaha aana waxaanu u sheegaa in raali geliso kadib aana waxay u soo dhaqaaqdaa qolkeeda waxayna aragnaa in David uu soo galay qolkeeda waana naxaysaa iyadoona ka filaysaa hadal xun kadib David ayaa ku dhahaa waan ka xumay dhimashada Carrage waxaanu ballan qaaday in gurigooda kaga guuri doono dhowr maalmood gudahood waxaanu si hoose u sheegayaa in ay Fariisa ka baxdo isagoona ku gubaya indhaha aana okay ay ku tiraahdaa kadib intaanu bixin wuxuu arkaa si dhib ku qoran yahay magaciisu isla markii wejiga u bedeshaa isagoona dhoola cadeynaya waxaanu ku dhahaa waa wax aad u fiican aana waxay ogaataa inuu David wacay dhakhtar ku takhasusay samaynta jidhka bini'aadamka ee balastiga kaasoo jooga Miami kaasoo lagu magacaabo Peter Boditon kaasoo shaqada ka fadhiistay 2 sano ka hor waxaana Lucas ka codsataa soo saarista macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan David Lucas ayaa ku dhahaa runtii waxaad u malaynaysaa in David dilay Carrage ninka kale Lucas weli wuxuu ka soo horjeedaa shakiga ana isagoona u malaynaya inay khalad fahansatay kadib waxaanu aragnaa Lucas in mar kale lagu fooday garaaska dhexdiisa kaasoo feeraya qofkii foodeeyay isagoona weliba ku qaraacaya ul kadib iskuulka waxay imaadaa David iyo Laura iyagoona ay la hadlayaan maamulaha iskuulka David wuu ku farxa markuu arkay inuu qaatay taladiisii uuna la dagaalamay markii loo caga jugleeyay nidaamka iskuulka yaala ayaa dhigaya in qofkii rabshad ka kiciyay iskuulka laga eri doono iskuulka gebi ahaantiiba maamulaha iskuulkuna wuxuu go'aansaday inuu eriyo Lucas kadib David ayaa ku dhahda maamulaha eri hal bil laakiin iskuulka ka saarin kadib Lucas ayaa u sheegay David wax kasta oo aanay u sheegtay waxaanu u sheegaa arrinta qaliinka waxaana kale uu ku dhahaa waxay moodaysaa inaad dishay Carrage saaxiibkii waxay u dadaalaysaa sidii u caddayn lahayd waxa tahay si ay saaxiibkeeda siig xabsiga uga soo saarto laakiin ma jirto cid rumaysanaysa iyada David arrinka aana markii hore uu ka gaabsaday laakiin markuu Lucas arrinka u sheegay gebi ahaantiisa wuu isbedelaa Lucas ayaa u sheega inay saaxiibteed Kristen la wadaagtay arrinka kadib waxaan aragnaa David oo dhar la wadaya Laura iyadoo Laura u mahadnaqaysa si kaliya laaba waxaana ku tiraahdaa sida qoyskayga u caawisay iyo sida u garab istaagtay waan kaaga mahad celinayaa kadib waxaan aragnaa Richard iyo kooxdiisa soo yimid guriga familka Peterson iyagoona weydiinaya David Laura waxaana soo muuqda isagoo dharsida kadib meesha waxa ka dhacay rasaaseen David ayaa dhaawac soo gaadha isagoona isku dayaya inuu baxsado waxaana la kulmaya Laura oo ku jirta jikada waxaana ku tiraahdaa yaa tahay waxaanu u sheegayaa inay isaga clip isku barnaamij ahaayeen kadib Laura ayaa sheegta meesha uu joogo kadib wuxuu gelinayaa midi Laura xagaas ayaana ku dhimanaysa inuu baxsad ku jiray waxa ku dhaca baabuurka Spencer isagoona ku yiraahdaa aan ka xumay mudane xagaas ayaanu ku dilaa Spencer kadib Richard ayaa yimaadaan makhaayadda si uu kaxeeyo aana kadib wax yar kadib waxaa imaanaya makhaayadda David isagoona raadinaya aana waanu waayaya waxaanu dilaya Kristen waxaanu ku qarxiyaa bam makhaayadii Richard wuxuu go'aansanayaa inuu raadiyo Lucas Richard ayaa daha ka qaada inuu David ka qayb ahaa barnaamij military oo sir ah kaasoo ah barnaamij horumarsan oo lagu talagalay in lagu abuuro askar quman David ayaa baxsaday kadib markii uu dib qabadsiiyay xaruntii tijaabada waxaanu dilay qof walba oo gudaha ku jiray kaasoo meydadkii gudaha ku jirna ay gubteen waxaana la aqoonsan waayay meydadkoodii si ay dunidu rumaysato inuu dhintay Lucasna wuxuu ka shaqaynaya program ka jira iskuulkooda kadib waxaa soo wacda aana laakiin macalinka ayaa u diida inuu telefoon ku dhex isticmaalo goobta kadib waxaan arkaynaa iyagoo sii socda iskuulka waxaana ka hor imanaya gawaadhida booliska iyo kuwa damiska oo socda jidka ay ka yimaadeen kaasoo Richard uu sheegaya in aanan la soo wareerin goobtii makhaayadda ay ka shaqayn jirtay kadib aana waxay weydiinaysaa miyay waalidkii waxaan ugu jawaabaa labadoodu waa dhinteen kadib waxay yimaadaan iskuulka markay Lucas yimaadaan waxaan aragnaa inay korontadu go'day kadib waxaa kaloo arkaynaa in David jooga goobta kaasoo sidhiga aan haysan jirtay shidaya kadib aana way garataa maninka cararsa goobta David wuxuu dilaa macalinka Lucas marka hore Lucas uu diidanaa inuu rumaysto aana laakiin hadda wax kasta wuxuu ku arkay indhihiisa inuu yahay dambiga David kadib Lucas ayaa aana u soo jeediya inay iskala hadlaan isaga laakiin aana waxa uu sheegtaa dhimashadooda labadoodii waalid hooyadoodii iyo aabahood inuu dilay David kadib waxay qarinaysaa Lucas aana waxa u soo baxaysaa sidii u heli lahayd Davidna wuxuu raadinayaa Lucas si uu dilo isaga isagoona ku dhawaaqaya soo bax saaxiib kaama yeelin taasoo yacni ugala jeedo inaad aga dhumato kaama yeelin Lucas ayaa aad u cabsanaya kadib David wuxuu maqlaa dhawaaq waxaanu dhaqaaqaa dhinaca dhawaaqu ka imaanaya waxaanu aragnaa aana oo baaskarood ku haysa David iyadoona ku leh waxaad dishay waalidkeygii kadib waxay ku dhufataa xabadii waana ku dhacaysaa David dhulka ayaanu ku dhaca iyadoona u malaynaysaa inuu dhintay wuxuu ku soo booda aana isagoona ceejinaya waxaana isku daydaa inay xabad ka jirto laakiin way ku guuldaraysataa oo meel kale ayaa ku dhacdaa kadib Lucas ayaa David geliya
mindi isaguna ku celcelinayaan isaguna sii daaya ana kadib wuxuu ku dhacaa dhulka isaguna Lucas ku dhaha waxa samaysay wax fiican halkaas ayuu ku dhintaa filimkeen wuxuu ku soo dhamaadaa adigu wali saarin like muuqaalka subscribe na dhihin fadlan inta dad ilowdina dib noogu taabo